Manchester City waxay xaqiijisay in macalinkooda Pep Guardiola ay heshiis cusub u saxiixay kooxda, isla markaana uu sii joogi doono Etihad Stadium. Guardiola ayaa galay bilihii ugu dambeeyay heshiiskiisa taa oo dhalisay in cabsi laga muujiyo mustaqbalka kooxda. Sheekada bixitaankiisa waxaa sii shaday bixitaankii agaasimaha isboortiga iyo saaxiibkii ugu dhawaa kooxda ninka lagu magacaabo Teki. Qaar badan oo taageerayaal kooxda City ka mid ah ayaa u qaatay in Pep uu raaci doono wadada saaxiibkii, laakiin waraysi uu bixiyay ayuu si maldahan ugu sheegay inuu kordhinayo qandaraaska. Heshiiska afka ayaa la isku afgartay horaantii usbuucan. City ayaana hadda xaqiijisay Pep uu qalin ku duugay heshiis cusub oo 2 sano ah. Qandaraaska cusub ee Guardiola ayaa ka dhigi doona in ka badan 10 sano inuu ka shaqeeyo City iyo kubadda cagta Ingiriiska. Wuxuu hadda isku diyaarin doonaa inuu ka garab shaqeeyo agaasimaha ciyaaraha cusub ee kooxda Hugo Viana. Agaasimihii hore Sporting Lisbon ayaa si rasmi ah u bilaabi doona shaqada City kadib dhamaadka xilli ciyaareedka. Pep wuxuu ka hadlay sababta ka dambeysa in heshiis cusub uu saxiixo kooxda Citizenska. Guardiola ayaa shaaca ka qaaday in arrintan ama heshiiskan uu ku qanciyay inuu saxiixo qandaraas cusub oo 2 sano ah oo ku sii joogo City, isagoo qartay inuu si dhab ah uga fiirsado ka tagista kooxda. Pep ayaa qartay inuu qorsheeyay in xilli ciyaareedkan uu noqdo kii ugu dambeeyay weli jooga City, balse wuxuu diiday inuu kooxda niyad jabiyo kadib 4 guuldarro xiriir ay la kulantay. City ayaa ka cabsi qabtay in 53 sano jirkan macsalaamay kooxda, waxayna dadaal badan u galeen inay ku qanciyaan inuu mar kale heshiis kordhiyo iyadoo xiriirka uu leeyahay gudoomiyaha Khaldoon Al-Mubarak uu kaalin weyn ka qaato go'aanka. Tani bilowga xilli ciyaareedka waxaan aad uga fikirayay ayuu yiri Pep, waxaan u maleynayay in xilli ciyaareedkan noqon doono kii ugu dambeeyay. Laakiin dhibaatooyinka la kulana bishii la soo dhaafay darteed waxaan dareemay inaysan ahayn waqtigii aan ka tagi lahaa. Waxaan dareemay in kooxda aan niyad jabin karin. Waxaan dareemay inaysan ahayn waqtigii saxda ah ee loo baahnaa inaan baxo. Way fududahay sida waxa laga yaabaa in 4 guuldarro xiriir ah ay sabab u tahay go'aankayga. Waxaan dareemay in kooxda weli ay rabto inaan weli isku sii xirnaano, sidaa darteed ayaan u saxiixay heshiiskan, ayuu yiri hogaamiyaha kooxda ninka lagu magacaabo Pep Guardiola.